warahmatullahi wabarakatuh. Horta asxaabtayda dhammaantood aad baan u salaamayaa si kale iyo laaba. Waxaan u sheegayaa oo kale inuu xirsin la joogo maanta oo Wolfsburg naga soo booqday oo ah gudoomiyaha Wolfsburg. Barnaamijkan isagu la wareegu daadiinayo. Haddii su'aalaha noqoto iyo haddii dhinac walba noqotaba uu isagu wato. Marka baaqa aanu direynaa waxa weeye masaajidka laga dhisayo magaalada Bremen inay yar iyo weynba ay ka qayb qaataan halkaas khayrka ayaa la ka qayb qaataan waxa la ay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaaladeeda Wolfsburg iyo magaaladan maanta aan joogay ee Hanoverba waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba aan leeyahay khayrka halka yaala waa khayr aad u fiican oo aakhiro waxa weeyaan meel fiican ma garanaysaa inaga gafaynaya insha Allah waxaan idinkula aan leeyahay ka qayb qaatay khayrkaasi السلام عليكم ورحمة الله. يورك في عنا نوشك تي تدكنا هنوفر هذين هاي دليرة إيو فاميلية إيو عروض تشوك تي إيو دمانتين إنه المساجد هالنوع آد بينو بهالناي وباهي وين بالعقبة أرنتن إنك اللي نوشك بريمان إن مساجد لقفريو وورلو فرحو رنتي أو آدي آدو سلوين. وأيسي وناكسون صعاويان وأمحيه تي دتكي صدقة أولن يونيا والدين تودي دينتي dadka ula niyoonay maxay tahay dad kale oo ehelkooda maxay tahay sadaqad si weyn looga qayb qaatayan aad ugu rajeenaya insha Allah bidmillahi kariim masaajidka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masaajid Soomaaliya ayaan ma garanaysaa wax ka fiican ma jiraan waliba dadka Soomaalida gaar ahaan in ay ka qayb qaataan kolba magaalada masaajid loo furaya mar Bremen mar Hanover mar Bomel dadka aad baan ku hambalyeynaya hawsha xad kale xirsiyo isagu gudoomiyaha jaaliyada Wolfsburg iyo Amin Qaro oo ah isaguna YouTube channel kan oo nin aad u firfircoon هذا هكو بخيلنا وعيد ويوم الفرح لقلما بخيلو قعنت كويرا دفتا تيسل عليه انك دفتا باش كورو مغلسانتي inuu yahay baaqa aanu direynaa waxa weeye masaajidka laga dhisayo magaalada Bremen inay yar iyo weynba ay ka qayb qaataan halkaas khayrka ayaa la ka qayb qaataan waxa la ay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaaladeeda Wolfsburg iyo magaaladan maanta aan joogay ee Hanoverba waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba aan leeyahay khayrka halka yaala waa khayr aad u fiican oo aakhiro waxa weeyaan meel fiican ma garanaysaa inaga gafaynaya insha Allah waxaan idinkula aan leeyahay ka qayb qaatay khayrkaasi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت اسمه غياضي. السلام عليكم مقعد عبد الرشيد عيسى كنا المقالة هانوفر ما توحنا صوب غضي من حرص الرهضة وهدي بيدن كيلي هي وضع موضوعه مساجد لقد نسيو مقالة بريمان أنا مقالة بريمان لبضة كوني سجالي طبنكي أيوة وحن تجي معتمر وكل قبلي شيخ مصطفى عن كغير قلي مساجد niman carabi ay mas'uul ka yihiin marka dhalinyar Soomaaliyeed ba mu'tamarkaana soo qabatay wax masaajida oo ay Soomaalidu halka ku lahaayeen ma jirto laakiin hadda la doonayaa abaabulka masaajid cusub in halka laga furo waxaan dhammaan ku guubaabinayaa dhalinyarta Jarmalka joogta Soomaalida gaar ahaan in ay ka qayb qaataan kolba magaalada masaajid loo furaya mar Bremen mar Hanover mar Bomel marka anigu waxaan soo dhaweynayaa haddii bidinka leeyahay masaajidka laga furayo Bremen waxaan leeyahay dhamaantiin ka qayb qaata khayrka waxana ugu qiimo badan adduunkan wax laga qayb qaato khayrka aad baan anadii salaamaya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa la dhahaa Maxamuud Maxamed waa dhalinyarta degan magaalada Hanover wafti baa nooga timi ka socota magaalada Bremen waftigaas waxay ka qayb galayeen oo ay wadeen inay masaajid laga dhiso Soomaaliya magaalada Bremen waxaan leeyahay dadka Bremen ku nool iyo guud ahaan dadka Jarmalka ku nool oo dhan waxa leeyahay masaajidka laga qayb qaato wax laga qayb qaato waxa ugu fiican khayrka oo de masaajid Ilaahay qof dhisaya oo beyd Ilaahay qof dhisaya wax ka fiican ma jirto marka ninkii ma garanaysaa sadaqa bixisanaya iyo kii kaleba waxaan leeyahay ka qayb qaateen masaajidka hal la dhiso sida qoomiyadaha kale ee Turkiga Carabta inaynu yeelano masaajid Soomaaliya ayaan ma garanaysaa wax ka fiican ma jiraan waliba dadka Hanover degan waxaan ku dhiiri gelinayaa iyagana in sida ma garanaysaa kaasoo kale iyo Bremen hadda masaajidka ay ka qayb galayaan in iyaguna aynu noqono dadkii labaad ee iyaguna masaajidka ka dhista Hanover oo caruurahooda meel ay malcaamad ugu dhigaan oo dugsiga Quraanka ugu dhigaan
inaynu samayno aynu ku dayano sida walaalaheen ay nagala soo qayb qaateen khayrka inay magaranaysaa inoo sheegaan marka waxaan leeyahay hawsha halkaa ka sii wada mustaqbalka dambe iyo caruuraheennana de waa wax inoo fiican oo qurbaa lagu nool yahay asalaamu calaykum بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا horta aamino walaal waa ku salaamayaa waanan mahadsan tahay arrintan wanaagsan iyo warka fiican aad noo sheegtay dadkuna hanoo faradaynu nahay dhalinyarada iyo faamiliyada iyo caruurta joogta iyo dad dhammaanteen inaynu masaajid helno aad baynu ugu baahanay oo baahi weyn baa loo qabaa arrintan iminka laynoo sheegaya Briman in masaajid laga furayo waa war lagu farxo runtii oo aad iyo aad u soo dhaweynayno wixii laynooga baahayo dhanna diyaar baynu nahay hadday noqoto maal iyo hadal iyo wax walba oo aynu ku hirgelin karno masaajidkaas waynu samaynaynaa runtii dhalinyarada iyo inta shaqaysa iyo dumarka faamiliyada iyo dhammaan in contributionka la sameeyo oo runtii laga qayb qaato gacan weyn laga geysto masaajidka sidii uu hirgeli lahaa ayaan aad ugu boorinayaa kolley wixii dee rag u kaco ma garanaysaa rabbina aqbalo uu rumoobaa baa la yidhi marka inoo rumoobayaa oo uu hirgelayaa maalin maalmaha ka mid ah wax dhici doonta inaynu masaajidkaas kolley isku arki doono oo aynu dhammaantii ku kulmi doono hawshaas baa nalaga fadhiyaa hawl walba himilo kasta la sameeyana kolley mar unbay hirgashaa way hirgelaysaa marka waxaan ku boorinayaa dhammaan intayna halka joogtay iyo inta kale ina dhegaysan doonta iyo inta na daawan doontaba inay ka qayb qaataan oo ay gacan weyn ka geystaan aad baad mahadsantahay walaal aamin aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku dhowahay aami walaal insha allah dee arrinkaa khayrka leh aad noo sheegtay ee ay maxay tahay odayaashu wadaan dee in si weyn looga soo qayb qaato ayaan ku wacyigelinayaa dhalinyarada iyo dhammaan dadka Nether Saxon degan iyo Hamburg iyo Bremenba waxaan leeyahay khayrka ka soo qayb qaata masaajidka la dhisayo ee laga dhisayo magaalada Bremen dee kulley khayrka in loo degdegaa fiican oo wixii hadduu masaajid yahay wax la gashado waana waxa ugu maxay tahay khayrka badan waxyaalaha ugu khayrka badan laba ku jira in masaajid meel ilaahay lagu caabudo dhismihiisa laga qayb qaato ama la dhiso dee wuxuu inooga baahan yahay garab weyn iyo inaynu maxay tahay si weyn uga qayb qaadano oo aynu taageerno haddii ilaahay ka dhigo insha Allah biidmillaahi kariim dee maxay tahay wixii sadaqad ku darsanaya iyo wixii maxay tahay tala iyo tusaale ku darsanayaba aad baan u soo dhaweynaynaa dadka Soomaalida dhamaantood meel kasta ay joogaan Jarmalka maxay tahay gobolka yagan maxay tahay Bremen lafteeda dee insha Allah biidmillaahi kariim waxaan aad ugu gawaabinayaa oo dadka aan maxay tahay ku boorinayaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha masaajidkaas oo ay si wanaagsan u soo caawiyaan oo maxay tahay dadkii sadaqada u la niyoonaya waalidiintoodii dhintay dadkii u la niyoonaya maxay tahay dad kale oo ehelkooda maxay tahay sadaqad si weyn looga qayb qaatayaan aad ugu rajeynayaa insha Allah biidmillaahi kariim masaajidka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمان جودات بانو سلام يا سكال يلاوا waxaan u sheegayaa kale inuu xirsin la joogo maanta oo Wolfsburg naga soo booqday oo ah gudoomiyaha Wolfsburg barnaamijkan isagu la wareegu daadinayo haddii su'aalaha noqotay iyo haddii dhinac walba noqotaba uu isagu wato marka xirso weyn su'aasha horti weydiisaa majaadka Bremen laga dhisayo Soomaalida ay dhisanayso la doonayo in laga caawiyo wixii qarash lagu dhisay meesha Soomaalida ama Bremen degnaato ama Hanover tan degnayba degnaato ama gobolka laba degnaadaan inay iskaga tagaan oo ay majaadka wax ku darsadaan oo laga caawiyo maalinba magaalo Jarmal qoladii ku horeysay majaadka la dhiso horta waa aad u wanaagsan oo lagala qayb galo Soomaalida majaadka Soomaalida kale majaajida imika dhisanaysa hawsheeda ku jirtay galeysana ayagana marka dambe lagala qayb galo horta waa qodob aad u wanaagsan سيادو وقتيبنا سومالي دا شرمل كجوجتا دي وا سومالي عصب بي بدنتي وما بدنا سومالي ما garanaysa dadkii horaayo dee wadankiin badan joogi uma badna Soomaali cusub ay badan too koogu dee fog 2008 buu yimi inta ka dambeysay ugu badan 14 bay soo galeen Soomaalida marka waana magaaladu weyn Hanover marka loo eego dee waxa uu mujito saacad iyo 20 daqiiqo jirta needad shaqsan bay ku dhex taalaa gobolkan bay ku dhex taalaa magaaladu ku dhex taalaa
markaa boqolkiiba boqol waa laga caawinayaa reer Hanofarna Soomaali badan baa degan waa loo sheegayaa waa la gaarsiinayaa masaajidka Brima Soomaalidu ay ka dhisaysaa hadda wadana adoo de gudoomiye Wolfsburg aad noo sheegtay adiga laftigaagu de aad gobolka nuunaad baad ka tirsantay neeri shaqsan markaa waxaan sameynaa in magaalada loo sheego adiga gudoomiye Wolfsburgna de hawsha wad ku jirtaayo magaaladaada iyo de tuulooyinka ku dhowood waad soo wargelisay maanta Hanofarna de waxaad joogtaa waxa weeye inaad dadka Soomaalida inaad ku baraarujisid joogay inay masaajidka ka qayb qaataan de waxaan rajaynayaa inaad gobolka kale Jarmalkaana mari doonto aad u sheegi doonto aad de oran doonto ayaga laftigooda de masaajidka aad gaarsiin doonto annaguna waxaan ku dadaalnaa de Hanofarta magaalada inaan masaajidka wax badan kala qayb qaadano dadka halkan joogana baraarujino u sheegno magaaladana waa magaalo weyn oo dad badan ku nool yihiin Soomaali dad badan oo Muslim oo Tukriyo wadamo kale fara badan ay ku nool yihiin ayada laftigeeda in laga hawlgeliyo masaajidda Tukriyo baa ku yaalay masaajidda Soomaali ay leedahay ku Tukriyo baa lagu tukadaa oo la tagaa hadii wax la aasiyo Tukriyo baa haasta sida Jarmalku uu badan yahay oo Jarmalka oo dhan de Tukriyo baa haasta marka inay Soomaalidu laftigoodu masaajidda sameeyaan oo xitaa ay wax aasi karaan oo waxyaabo fara badan ay qofka codsada aynu geyn karayno oo aynu noqono community-ga aad u adag aynu yeelano oo ka gacan banaan sida Turkida oo kale sida Turkida oo kale de ka gacan banaan oo wuxuu de gaar u qabsan karaa inay noqdaan marka taa laftigeeduna wax loo baahan yahay aan ka wada shaqeynno aan doonayn de Jarmalka siibahan marba gobol bay taagantahay imika in de Needi Shaqsan iyo Bremen iyo inta Hamburg iyo inta waqooyiga dhimi waa gobol isku dhow marka mar hadii Bremen laga bilaabay waxaan rajaynayaa inaan Hanover iyo magaalooyinka kale imika aanay bilaabin horta kala la dhameystiro ayaga oo wax laga qabto oo de laga midho dhaliyo marka aad baan uga qayb galeynaa adiguna waad ku maasantay de booqashada aad maanta soo booqatay iyo de hawlo fara badan aad nala socodsiisay maanta magaalada aad baad u maadsan tahay de nin kale oo inuu jooga isaguna de wax ku oranayo uu idin sheegi doona hadii Ilaahay dhaahdo de maanta channelku adigu kugu casuumay waa sax saaxiib waxa weeyaan aad iyo aad baad kaaga mahad celinaa sida quruxda badan ee channelkaaga aad igu soo dhaweysay imikana waxaan ku soo dhaweyn